Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soonqaad wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii diblomaasi oo aynu ku eegayno wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maanta oo ay ahayd maalintii 416aad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay Ruushku 8 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen dadyo badan oo kalena ay ku dhaawacmeen inkastoo tiradooda la xaqiijin dhaawaca kadib markii gantaal ciidamada Ruushka ay ku dhufteen tuulada ku taalla bariga dalka Ukraine ee Sloviansk. maamulka Ukrainiyiinta magaaladaas waxay sheegayaan ilaa ay haatan inay ku mashquulsan yihiin ururinta iyo raadinta dhaawacyada. wasaaradda gaashaandhigga dalka Ingiriisku waxay sheegtay inay muuqato xogaa guula inay ka gaarayaan dagaalka ay ka wadaan ciidamada Wagner Group oo iyagu ah ciidamo gaar oo ka barbar dagaalama kuwa Ruushka tuulada istiraatiijiga ee Bakhmut. waxayse sheegeen weli si buuxda inaanay tuulada gacanta ugu dhigin. dhankeeda wasaaradda gaashaandhigga Ukrainiyiinta ayaa ku adkaysanaysa in ciidamadeedu weli ay ka dagaalamayaan tuulada, sidoo kalena ay jiraan gurmadyo loo diray tuulada inay ka dagaalamaan. dukumiintigii dhowaantan laga xaday wasaaradda gaashaandhigga dalka ayaa saacadba ka dambaysa waxaa ka soo baxaysa sir hor loo laga helayo. markana waxaa laga helay xog ku saabsaneed ciidamada gaarka ee Ruushka ee ka dagaalamaya dalka Ukraine oo lagu sheegay in khasaaro weyn ay soo gaartay. warbixintan ayaa noqon karta boonboonintii iyo barbagandadii reer galbeedka maadaama aanu ku xusin tiro rasmi oo sheegeen in lagaga laayay halka Ruushka. gudoomiyaha guddiga amniga qaranka ee dalka Ukraine waxa uu sheegay in dowladda Ukraine tijaabinayso isticmaalaysana hub kasto ay heli karto aan adduunka mamnuuc ka ahayn. wasaaradda gaashaandhigga Ukrainiyiintu waxay sheegtay maalinimadii maanta ahayd inay heleen meydadka 82 askarta Ukrainiyiinta ka tirsanaa oo hore ay ciidamada Ruushka ugu laayeen bariga dalka Ukraine, xabaalo wadareedna ay ku aaseen. waa markii ugu horeysay dowladda Ukraine sheegato in ciidamo kuweeda la laayay. hadiyo gooraale dowladda Ukraine waxay sheegtaa khasaaro walba soo gaartay inay tahay mid haleeshay bulshada rayidka ah. kadib wada hadallo uga socday magaalada Beijing labadii maalmood ee lasoo dhaafay, madaxweynayaasha Shiinaha iyo Baraasiil waxay isku raaceen in xalka kaliya lagu soo afjari karo colaadda ka taagan dalka Ukraine uu yahay miisaska wada hadalku dib loogu noqdo. sidoo kale haweeneyda wasiirka arrimaha dibadda ka dalka Jarmalka oo iyaduna ku sugan dalka Shiinaha waxay sheegtay dowladda Shiinaha in looga fadhiyo inay culays ku saarto dowladda Ruushku sidii ay ciidamadeeda ugala bixi lahayd Ukraine. waxay sheegtay inaanay jirin dowlad kale oo adduunka ku taal oo saameyn ku leh dowladda Ruushka aan ka ahayn dowladda Shiinaha. xogayaha guud ee qaramada midoobay maalinimadii maanta ahayd waxa uu warqad u diray dowladaha Ruushka, Turkiga iyo Ukraine, waxaana uu kula wadaagay warqadda sida uu uga walwalsan yahay in dowladda Ruushku ay diido inay mar dambe cusboonaysiiso heshiiskii qamadi dhoofinta Ukrainiyiinta. dowladda Finland oo iyadu toddobaadkii lasoo dhaafay ku biirtay gaashaanbuurta NATO ayaa bilowday silig ay ku xirayso soodinta dheer ay la wadaagto dalka Ruushka. haatan ayay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Finland inay bilowday 200 kiiloomitir inay silig ku xirto, balse soodintu waa mid intaa ka badan, dhererkeeduna gaaraya 1400 kiiloomitir. qoraal rasmi oo ka soo baxay aqalka Pentagon-ka looga arrimiyo wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka waxaa lagu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan xogayaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Lloyd Austin uu la kulmayo dhigagiisa dalalka Sweden iyo Jarmalka, xilligaa kadibna uu la kulmi doono wasiirro iyo madax ka kala socoto 50 dowladood. gebi ahaanba arrimahaas ayaa waxay yihiin kuwo la xiriira sidii loo dardargelin lahaa Ukrainiyiintu sidii dalkooda uga saari lahaayeen Ruushka. dowladda Canada waxay sheegtay 8 kaaraha loo yaqaano Leopard labaad ee u ballan qaaday dalka Ukraine inay haatan gaarsiisay dalka kale dariska yihiin ee Poland. wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Denmark waxay sheegtay inay Ukrainiyiinta u gacan gelinayso 19 ka mid ah madaafiicda goobta loo yaqaano Caesar ay farsamayso dowladda Faransiisku. dukumiintigii dhowaanta laga xaday wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka sidoo kale maalinimadii maanta ahayd waxaa laga helay xog qarsoodi ah oo tilmaamaysa dowladda Shiinuhu inay qorsheyso hub inay ku caawiso dalka Ruushka, balse dowladda Shiinuhu ay sheegtay in ay qarin doonto inay wax huba siisay dalka Ukraine. xilli askari Ukrainiyiin ay sheegeen in dagaalada ay kula jiraan dowladda Ruushka ee bariga dalka ayba ku arkeen hubab lagu sameeyay dalka Shiinaha. wasiirka arrimaha dibadda dalka Shiinuhu waxa uu beeniyay xogahaas, waxaana uu sheegay inaanu wax huba ka iibinayn dowladaha Ruushka iyo Ukraine toona. daawadayaal hal xiraaleheeni maalinimadii shalay ay ahaa imise nambar ayaa kuu muuqda. waxaa markii ugu horeysay si sax uga soo jawaabay shakhsiga lagu magacaabo Amiin Cali oo isagu inoo sheegay nambaradaas inay ka kooban yihiin 6 8 9 4 1. hal xiraalahaasuna sidaas ayuu ku furan yahay. Amiin Calina ku soo codsan karaya barnaamij uu danaynayo inuu samayno. hal xiraalaheena maalinimada maantaana waxa uu noqonayaa daawadayaal kan haatan idiin muuqda. waxaynu maanta noqonaynaa dhakhtarka indhaha, waxaynuna tijaabo ka qaadaynaa aragtida indhaheenna. waxaa lagaa doonayaa inaad isku daydo sheegtana inta nambar ee halka aad ka arki karto.
fadlan furitaankaaga halxiraalaha nagula wadaa qaab commenti ee mahadsanid. daawadayaal intaa waxaynu kusoo gabagabeynaynaa xogihaynu kasoo ururinay wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maanta ay ahayd maalintii 416 iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay Ruushku. dabcan wixii xogaha kusoo kordha waxaad kula socon doontaan xogaheena soo socda. fadlan muuqaalka inoo like gareeya, share gareeya oo la wadaaga asxaabtiina hana ilaawina like-tiina iyo share-tiina inay noo tahay hadiyad iyo dhiirigelin qaali oo idinka timid. sidoo kale waxay xoojinaysaa muuqaalka shaashada idinka muuqda waa mid hore idin dhaafay daawada ku xirnaada kanaalka mahadsanidin. rabadaan wanaagsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. 좌측방 환자 1명, 환자 1명.